kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada mar kale iyo tabinteena oo aad ku maqli doontaan caawa xiisada ka taagan wali bariga dhexe Iran oo soo riday diyaarad isla markaasina diiday heshiiska madaxweyne Donald Trump uu soo bandhigay oo ay shuruudo ku xirtay sidoo kale waxaad maqli doontaan gudaha wadanka Soomaaliya dawladda federaalka ah iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo xaaladoodu ay tahay meeshii ugu sareysay oo xiisad ah ayadoo dhinaca kale tana taliyihii xilka laga qaaday ee taliye shubka ehel dhowna ay yihiin madaxweynaha Koonfur Galbeed ilaa ay haatan la sheegayo in uu ku jiro xabsi guri amaba waxa loo yaqaan in kor laga ilaalinayo loo ogoleen dhaqdhaqaaq wararka haatan soo gaaraya ee dhinaca Iran ayaa waxa ay sheegayaan in dawladda Iran ay soo riday mid ka mid ah diyaaradaha casriga ee dalka Mareykanka uu ku dagaalamo ee F-18 loo yaqaano ayay Iran sheegtay in ay kol dhaweeto soo riday waxa ay ku soo beegmaysaa xilli dawladda Iran wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi uu ka dhawaajiyay in ay diyaar u ahayn wada xaajood ay la galaan Iran sabab la xiriira ayuu yiraahday qodobada ay soo bandhigtay dawladda Mareykanka ee heshiiska oo u muuqda ayuu yiraahday in ay yihiin kuwo Iran lagu qasbayo waxyaabo aanan dan ugu jirin isla markaasina la rabo in lagu qaato wadankaasi waa sida uu hadalku u yiraahday diyaaradan F-18 ayaa waxa ay tahay diyaarad cusub oo dawladda Mareykanku ay leedahay ee hawada ka dagaalanta ee diyaaradaha dagaalka ah waxa ayna Iran sheegtay in diyaaradaasi ay soo rideen diyaaradan soo ridisteeda ayaa waxay imaanaysaa maalmo isdaba joog ah oo dawladda Iran iyo sidoo kale dagaalyahanada dalkaasi ay soo ridayaan diyaarado F-18 F-35 iyo F-16 ba kuwaasi oo ah diyaaradaha Mareykanka ee qaaliga ah ee dagaalka uu kula jiro dalkaasi Iran madaxweyne Donald Trump uu geeyay bariga dhexe wararka qaar waxa ay sheegayaan sida Al Jazeera oo kale ay warinayso waxa jira Iran in ay la soo baxday sistamyo iyo hanaanyo cusub oo ay dagaalka ay kula jirto Israel iyo Mareykanku ay awood ugu yeelanayso in ay ku soo rido diyaaradaha Mareykanka arintan ayaa waxay imaanaysaa xilli madaxweyne Donald Trump uu ka dhawaajiyay in wada xaajoodka u dhaxeeya Iran sida uu yiraahday iyo dawladda Mareykanku ay marayaan heer ay ka wada hadlayaan qodobo ay soo jeediyeen balse waxa Iran dhinaca kale ay sheegtay in qodobadaasi qodobo ka duwan ee ayaduna qabto kuwaas ay kamid tahay 5 qodob oo ay leedahay hadii ay Iran heshiis iyo waxbajoojin ay la galayso Mareykanku waa in Mareykanku ay ogolaadaan in aysan mar kale soo weerari karin Iran sidoo kale tana waa in Mareykanku uu dhinaca kale ogolaadaa in haatan si rasmi ah xabada loo joojinayo ayada oo dhinaca kale tana dawladda Iran dhinaca kale ay sheegtay in loo ogolaanayo barnaamijkeeda naaxinta hubka nuclear-ka aanan ahayn ee barnaamijka nabadeed ee dalkaasi uu leeyahay waxa kale oo Iran waqtigan ay ka hadlaysaa in dawladda Mareykanku ay markaasi bixiso hantidii dhammaan ku burburtay intii ay wadada qiimaha ka socday dalkaasi Iran waxa arinka Iran uu imaanaya dhinac madaxweyne Donald Trump ee ka tahay mar yaa ka aamusiya dagaalka ka soconaya halkaasi oo galay wax ka yar 2 cisho bil buuxda dhiman 2 cisho kadib in dagaalku uu noqonayo muddo bil ah oo buuxda hadaba dalalka ku yaala bariga dhexe ee ay colaaduhu saameeyeen ayaa sida Al Jazeera ay warinayso waxa la helay tirada dhaawacyada iyo dhimashada dal walba dalka uu ka badan yahay iyo sida saameynta uu ugu leeyahay hadii aan soo qaadano dalka Iran ayaa dhimashada ugu badani ee dagaalka ee saameynta uu ku yeeshay ay tahay waxaana la sheegay in ay ku dhinteen 1500 oo qof ayada oo 18551 qofna ay dhaawacyo ka soo gaareen waxa sidoo kale jirta in dawladda Mareykanka 13 askari ay uga dhinteen sida la yiri 200 qofna ay uga dhaawacmeen waxa dhinaca kale jirta Israel in sida ay sheegatay 18 qof ay uga dhinteen 4829 qofna ay uga dhaawacmeen tirada dadka meesha kale ugu badan ee dhimashada ayaa waxa ay tahay dalka Lebanon oo ilaa iyo 1072 qof ayaa ku dhimatay waxaana ku dhaawacmay tiro ku dhow 3000 oo qof Iraq ayaa 82 qof ay ku dhimatay dagaalkan intii uu socday waxaana jirta in Imaaraadka Carabta ay ku dhinteen 8 qof sida la yiraahday 161 qofna dhaawacyo ay ka soo gaareen 3 qof waxa ay ku dhinteen Oman sidoo kale tana waxa jirta in Israel ay tahay
meelaha ugu badan ee burburka xoogan uu soo gaaray maadaama gantaalada Iran ay si toos ugu dhacayaan dalkaasi hadaba dagaalkan ma u muuqda inuu yahay mid lagu guuleysan karo in la soo afjaro arintaasi waxa ka soo baxaya oo si weyn dadku ay isula dhexmarayaan dareeno kala gedisan oo isfeer soconaya dawladda Mareykanka inkastoo oo ay rabto in ay markaasi dagaalkan soo gabagabayso haddana waxa ay soo jeediso dhowr iyo 10 qodob kuwaasi oo loo soo jeediyay Iran hase yeeshee Iran ay arintan ay u cuntami weysay waxaana muuqanaysa maalmihii ugu dambeysay in Iran ay si weyn dagaalkani ay ayadu ugu gacan sareyso taasi oo sabab ka dhigaysa xataa in ay adkaysi yeelato oo ay ku diideyso in dawladda Mareykanka qodobada ay soo jeedisay ee iyadu qaadato ee shuruudaha ay ku xiran in dagaalka ka soconaya bariga dhexe la gabagabeeyo ama la soo afjaraba haddaan raahdo Iran waxa ay diiday mashruuca madaxweyne Donald Trump ee nabadda ee uu soo jeediyay waxa ayna soo saartay 5 qodob ee hore aan u soo sheegay hadaba shuruudaha dhinacyadu ay isu soo jeedinayaan ayaa waxa ay tahay arin saameyn ku yeelan karta xataa in si rasmi ah dagaalka loo soo afjaro inkastoo dhinacyada qaarkood ay daneynayaan waqtigan wada xaajood in lagu soo afjaro xiisada halkaasi ka taagan waxaa jirta in maantadan la joogo xilka qaadis lagu sameeyay taliyihii ciidamada asluubta general ninka la yiraahdo Mahad Cabdiraxmaan oo loo yaqaan taliye shubka ayaa wararka haatan aynu helayno waxay sheegayaan in xabsi guri ay dawladdu ka dhigtay inkastoo saraakiil kamid ah dawladda oo la xiriiray ay sheegeen dhinaca kaleeto in xabsi gurinimadaasi aysan jirin balse si guud kor looga ilaalinayo waa sida hadalka uu yiraahdeen dhaqdhaqaaqiisa iyo socdaalkiisa waxaase xusid mudan dhinaca kale in arintan oo si weyn baraha bulshada la isula dhexmarayo ay saameyn yeelato oo hadii qofkii xilka laga qaaday ama taliyay xilka laga qaaday uusan ahayn qof sidoo doono u dhaqdhaqaaqi karo waxaa jirta taliye shubka xilka qaadista lagu sameeyay in xiriir ay la leedahay dhinaca kale khilaafka dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulka Koonfur Galbeed sabab la xiriiro maamulka Koonfur Galbeed oo olog iyo saaxiib ay yihiin madaxweynaheeda taliye shubka oo dhinacna markii la eego uu yahay sodogiis arintan ayaa waxa soo bixisay maalmihii ugu dambeysay xiisada dawladda dhexe Soomaaliya u dhaxeyso iyo maamulka Koonfur Galbeed ayaan ka hadlayay in siyaasiyiinta ka soo jeeda Koonfur Galbeed ay si weyn uga digayeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in uu dagaal ku qaado goboladaasi kuwaas oo saameyn reebi kara dhiig badan in uu ku daadan karo waxaana dadku ay uga digayaan madaxweynaha oo waqtigan xilligiisii waxa ka dhiman ay aad u yar yihiin in uusan dhiig lugaha la sii galin isla markaasina beelo Soomaaliyeed iyo dad degani aysan dhibaato ka gaarin asaga dhinaca kale dadka sida dhow ay isugu dhawaayeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xisbigiisana ka tirsanaa isla markaasina ahaa isagu xogayaha xisbigaasi GSP xildhibaanka la yiraahdo xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawa uu xilkii iska casilay isagu uu u hayay xisbigaasi madaxweynaha oo muddo 4 sano ah waqti ku dhow ay saaxiibo soo wada ahaayeen oo lagna ay ku soo ahaayeen xisbigan iyo siyaasadda guud ahaanba Cabdiraxmaan Odawa oo haatan tareenkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee muddaba la soo hadalhayay ka booday sida warka loo dhigayo ayaa galabta galinkii dambe waxa ay kulan yeesheen madaxweynaha iyo asaga si markaasi kulankaasi ay yeesheen is-afgarad uu u soo baxo ayay ujeedadiisu ahayd madaxweynahana uu ku doonayay in uu kula hadlo xildhibaan Cabdiraxmaan Odawa wada hadalkaasi ay ku soo burbureen waxba yahay ka gadaal markii Odawa uu diiday in uu dib xilkiisi u sii haysto xisbiga GSP isla markaasina uu xubin ka sii ahaado xisbiga ayadoo markii madaxweynaha uu ku qancin waayay arintaasina kulankoodii waxba yahay iyo khilaafaad lagu kala tagay uu ku soo ilaaday hadaba xiisada ka taagan Soomaaliya waqtigan ee ku saleysan maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland iyo sidoo kale Koonfur Galbeed oo haatan timid ayaa waxa iska tahay arin had iyo goor dhacdo amaba muuqato ama soo noqnoqotaba 4 sano kasta markii madaxweyne xilka intuu ka dhamaado xafiiska inuu ka sii tago ay ahayd balse dib dhinaca kale uu hunguri uga galo in uu ku soo noqdo xafiiska taasi oo keeni karta mararka qaarkood in dhinacyada Soomaaliya siyaasadeeda xulufaysi ay noqoto markaasina lagu kala leexdo wadooyin badan oo markii horeeto lagu wada socday wararka ku saleysan Soomaaliya guud ahaanba bariga dhexe si toos ah ayaan idin la socodsiin doonaa ma dhaafnay sidaas iyo nabadgelyo